bal sidaa u samaysay waxyaabihii kuu suurtageliyey bal uga sheekeeda dadka xidhayaan Soomaali aad markaa dhahdid waxa lagu dhahaa mawaalanta ma naftaada nacday oo naftaada ma risk gelinaysa wadan qarax dhacay soo aadaysa oo abnigaaga ku damaanad qaadaya inaysa oo ka dambeeyo waa in lagu kala turjuma khalad ma fikiro ayil أو كنا سدح بالوجرة مركز عيل واحد أو ترى ما لنا استهاي جيم كمستر بين بعتقد بس واحدة عن جرة هيلب هو قريب بيو سبيد أو اللي وده المسمية عن جرة روتي خمدي وأنا ونكسن دعوة يا شيء بكحران بيت كيجا مريان لدنا يصيدوا كل يوتيوب كيجا مريان لدنا أفشيال وحين لا يصير وهذا مير كستوى جوكتين يحل كستوى نيت هاي هديت مكوكو رسالة جنال كنا بيت كنا بعصاب بقطة فالله حقلنا سبسكرايب تيفلو ده أنا جحستين سيادة الله سعتم مقالة إيه وحيابها أسوق لنا أنا بيتك لايك له فلونا صوده شارنا ده سيا وأكان أصحاب هذا كله ما أنتي وحان ربائنا هالكم كورة استسلام كان إسكورة سنو ويل لنا يراه إزام حسن أو كم ذا لنا يراه كإمادة قربها كان مقنع ودن كم مدة كسر من لبعتن سنو وهذا نجوجا ودن كم مدة حال سنة يبر أيام حن كورة سنتنا فالسيدا ahaa intuusan imaan intuu Soomaaliya ka maqnaa iyo waxyaabihii markaasi looga sheekeyn jiray waxa kale oo ka wareysan doonaa Izaam waa wiil dhalinyaro runtii dhalinyarada Soomaaliyeedna tusaale fiican u noqon kara waxa uu sameeyay weight loss ama miisaan dhimis aad u weyn oo qof hadii loo sheego runtii uu soo rumaysan karin Izaam waxa uu ahaa markiisa hore 145 kg sida uu noo sheegay waxaana iska riday muddo 5 bilood ah 69 kg hadda sidoo ii sheegay waa 80 kg waxaan ka wareysan doonaa maadaama bil Ramadaan ay nagu soo wajahan tahay sida uu u lumiyay miisaankaas faraha badan isagoo markaas caafimaad qaba si ay uga faa'iideystaan dhalinyarada Soomaaliyeed ee kale ee ku jirta inay sameeyaan weight loss ama miisaan dhimis iskana dhimaan faatka badan ama baruurta badan ugu horeyn Izaam soo dhawow ku soo dhawow mareen ladana official kusoo dhawow YouTube kayga iyo sidoo kale page kayga kusoo dhawow Muqdisho waa dhawow Maryan ladana sidoo kale sida soo dhaweysay gacmo furan kusoo dhawow diyaar baa waa in interviewgaaga iyo wareysigaaga qayb qaato dadka wacyi gelino waagaas soo dhawow Izaam horta marka hore oo kusoo dhaweena su'aasha aan ku weydiinayo waxay tahay marka hore wadanka waxa ka maqnay sida ay sheegtay 17 sano iyo wax la jiro waa muddo fog markii la fiiriyo bal waxa iga sheekaysaa inta wadanka ka maqnayd waxyaabihii maqli jirtay waxyaabihii dhagaa ku soo dhici jireen iyo hadda imaaday maxaa farqi u dhaxeeya والله ودن كمركا كم خناي وحواي قرحية فربضاً دد باين تلو ديله ودن خال قديم بري دد برغبغاندا ودن كسمين عبارة كمرك دليرت المكان وحكول يرجعنا إن ودن كدب يوصل لابتان أي مادان وحفيسبوك الوخرة أي سوشيال ميديا لسكدايو أنا مركا معنا ودن كعب سنة مدة أسبوع ياله ماشى جوا كعب سنة دد كثير وحملنا إن دلايان أم قرح ودان مدة مركا جوا نن مجال كيس كمرايو هبين كيس كوريجو وحاركين وحاوا ودن كوانا ود سنة بركة هذا جو وح قرح وح قل قلم ابني ما أركين وحاوا دنيار كمكان وهاي مادان ودن كتصوب بوهدان سلا سعيد إسام أنت كوسقنا قربها وحيابها أد كلبو شيء جري أو لقولي جري ودن كوحنا كجرا maxaa adiga maxaa dareemi jirtay markaas horta wadanka abni kama jira la dhigi jiro waxa waaye wadanka dadka xidhayaan Soomaali aad markaa dhahdid waxa lagu dhahaa mawaalanta ma naftaada nacday oo naftaada ma risk gelinaysa wadan qarax dhacay soo aadaysa oo abnigaaga ku damaanad qaadaya marka qof dhalinyar saaxiibkaaga u sheegtan waalidka anigu muddo ugu qaadatay inaa ka dhacay aabahay iyo hooyaday inaa dalka ku soo laabtay inaa rabo gaar ahaan maamada ugu qaadatay tahay oo hada laba goor baan Mareykan joogo waan dhima karaa maxay ahayd malakmoodka meel uu ku cafinay ma lahan please waxa ka codsanaa inaa dalka aado soo booqdo raba oo soo fiiriyo anoo yar ay ugu dambeysay waagii Itoobiyaanka dalka hada marka inaa soo fiiriyo culture-ka soo barta dhaqanka soo barta waa inaa dalka aado dhiirgelin u noqdo dad badan ala Izaam dhalinyarada markay qurbaha tagaan
waxaa jirto in af Soomaaliga uu ka soo bedelmo dhaqan celis waxa la loogu yeero markay inta imaadaan bal ka waran marka inta timid iyo marka ka tagaysa Soomaaliya farq weyn u dhaxeeyo bal maxaa dareentay maxaa dhalinyarada maxaa kula kulantay asxaabtaada iyo dadka istaqaaneen والله horta communicate waalidkay ku xiran tahay af Soomaaliga baratida oo waalidkay ku xiran tahay af Soomaali aniga maamadeeda iyo waalidiinteeda af Soomaaliga wala hadlaayeen luqadayna gabaaladida because ayeeya ka dambeeyay awoowa ka dambeeyay waa in lagu turjumo kala turjuma khalad marka maxay ahayd Soomaali waa ku qasbanay laakiin marka inta maada xalida cunug yar oo xataa sujuud af Soomaaligiisa ever zero yaalka xaafada af Soomaaliga oo bat waaya dad baa idhahan xataa marka inta maaday ma dhaqan cilin baa lagu keenay maada iska imaato iska soo doontay aniga xadaa ana iskay maado dhaqan cilin wax la hayo ma jirto ana dalkayga baqtay because dalkaaga waa dala joog waa dada lahayn dalkaas aniga malihi ka maalna dhalashada laga cisana laakiin Muqdisho aniga iska leh aniga marina ku soo marti kara qof kale oo marti kara aadiya meesha laamiga daji qofka ka xaqdeys malaha aadiya marka waqtiga ka tagtay oo Muqdisho iyo maantay maxaa farqiga u dhaxaya isleedahay maxay indhaha u qabteen والله مقدشة واجا كتجاي وحي أنا وايراي لكن مركا محمد ويدي هذا عشاء لقى مركا لقى بحر ولا حروضة ابني لقى عبسنا كوي توسع باور داويسي ماشى سو جيفني ست أدوا مقالة وهرمر بلع سمينة سو أدون قلة ترتمي سو بس سدي ساعة سبتالة دي قاعدة فريهين ماشي كي ما هذا بقول وحكي أمن بدن مقالة المقدشة هدي حقيقة لا شيء جاي مقدشة مريكان كارد كي ما بقول مقالة المقدشة أمن بدن سيف مريكان بقايلها وحقيقة ميل أو دريفت رول ده هاي جاري كجلا شن ساعة قدام بي باب بحرايان مركز شفرايان أبني مجرو شو جالس كمان نسوي مدة ما نخالك مقدشة وحاوي واقع كتبصع 6 ساعة اللي ذاك إيمانه ما شاء الله إسامو حنا غش كيسا هذا أصله قدامنا موضوع مهم كعربنا إن إسام كوريسنا سيدا إيش كتي وحاهد بقول أفرتني 5 كيجي حتى أنا وحاتي سيدا إيش 6 كيجي ميسان بدنا هالكاس udhaxeeyo bal dhalinyarada waxa uga sheekaysaa iyo waliba dadka jecel inay miisaan dhimista sameeyaan maadaama bisha barakeysan ee Ramadaan aad looga faa'iideysto ay tahay in miisaan dhimis qofka uu sameyn karo bal sida uu sameysay waxyaabihii ku suurta galiyay bal uga sheekeeda marina marka ma horta xagga time gym tago waa wisnaa oo wax marna waa cararaysa shaqo aadaysa marna wax barasho aadaysa marka intii maalin ko waxa qabtay nin wadankiisa iyo hami u lahaay waa fikiray wax ayil أو كنا سدح بالوجرة مركز عيل واحد أو ترى ما لنا استهاي جيم كمستر بين باتجا وحدا ميقا استجريد مركز مستر بين وحدا جدال كايو كفرنتا همي جاي أنا نقام بحاتي وحاول وحس جيم كحتى يجري سواح قلب هوين ما تيجي حيسي ديرتنا دبك كبحة اللي إذا لو كنت قلب سواح دي قلب كستو جيم كمركز كي ما ذا لو وقت شرنجرت وكعابينيسا جرنجرتيدا نمبر 1 اكسرسايز جرنجرتا حسمي جرس 15 cuntadana hada iska saxdid oo waxa macaanka iyo sokorta ku jirta iska daysid waa ku saxmaysaa aniga waxa sameey jiray subaxda cuni jiray hilib lagu kariyo biyo oo saliid oo liibada lagu sameeyay ku cuni jiray rootiga qamadiga quraacda marka qadadan waxa cuni jiray malaay oo saliid oo liibada lagu dubay iyo koosto cuni jiray habeenkana cashada intaan jiimka galin maqribkii waxa cuni jiray fruit عشاء كدن بين مسلمين قف وإنه قان حتى يتبقى غير بدن وحاركيسا جيم كمانايو وخرج كبحايو وما أنت جنبنايو وبري مانايو ومركي وحي جيرك مسقط كسارين في مقايد تغيان عنايان بريس موف وحي معانك كجوجي الله كسرنا ساعة مجرانا لكن هذه واحد سكديسي هذا داشيت مريض مدة 5 بلود
69 kiilo inaan lagu ridi karin adiga waa ugu jeedaa dhedhel inayna ahayn marka adiga marka hore hilibkan sidee uu ku dhalatay oo dad waxaa jiro hilibka macnaha hido u ah dadka ka dhaxla adiga ma ku dhalatay oo ilaa yaraantaadii mise wax oo waqti ku koray waa wax waqti xilliga COVID-19 oo bandamiga dhacay oo adduunka oo bandow guryaha la iska dhigata oo hilibka koray maxaa cuni jiray markaas macmacaan wixii oo dhan markaas shaqada ma jirin jaamacadaha online lagu qaadanay qaala fadhiye dadka qurbaan waxaa ka codsanaya inay macmacaanka daayaan ognahane xagga socod ma jiro gawaari baa la saaran yahay shaqada waa xafiisi kursiga la fadhiyaa macaankaas hadda keena lala fariisanayo muqdisho waxaa at least xitaa bajaaj haday ku gembiso alweynaysa marka hilibkaas laheyd oo 145 kg runtii markii la fiiriyo waa hilib aad u badan bulshada maxaa kala kulmi jirta والله bulshada Soomaaliyeed waa waqti oo kugu mashquulaya inay bidac naag muqrabto passport diaspora wadata waqt xamar waqti dhumis baa u imaade iscaatay jim aad adiga muddo dhaga markii lagu dhahay hadana xidhahan dadka qaarkood qaliin baa isku sameeyay dadka qaliin isku sameeyeen si natural baa hilibka iskaga daji dadkii hore iyo yaqaan dad fahmi karaan laakiin dad ku dhahay qaliin baa isku sameeyay marka kala siinaysa ayaa daalay macquul ma aha wax stock baan marka gaarto sameey karaysa marka la eego dhanka shukaansiga maasawaha waxaa ognahay inta badan gabdhaha markii la fiiriyo waliba dumarka laftirkooda dadka weydka aad ka saaran ama baruurta saa'idka in xagga shukaansiga waxaa la isku fiicneen oo culayska kora taas bal naga horan walahi way jirtaa markii qadka telefoonka ku hadlayso kala daalaysa maanta waa neef tuuraysa qofka ku dhaaya maxaa lagu soo bursanayaa lagu celisanayaa waxa way marka laakiin hadda markii caafimaadkaaga laakiin oo fit yahay qof kasta ku saranaysa tijaanas qof oo baruur leh qof rabta ma lahan oo waxa way qof kasta ku dhaaya gabar baruur leh marabi gabar dhax yara la rabaa ximbaar karo gabarta xubnaysani nin baruur laho jidka lama mari karaay nin yaro waxa rabaa aniga oo gacanta ka qabsan karo la laafiyo karo marka isaamo marka qiyaastid 5 bilood oo 69 kg maxay kula tahay bishii inaa ridaysay walahi bishii ugu dhawaa waxa riday 13 ilaa 16 intuu dhaxayso dadaal miisaanka gamay waxa dhawac qanaaye jiimka ba 3 waqti galay jaranjara ii dheereed oo jaranjarta ku caraan oo guriga 20 xabo jaranjarada guriga miya liida lug tagaayo subax iyo qalab oo maxay intaas waxa la dagaaltamay ina hilibka iyo qadiinta iskari nin ficiisa asaagiisa la tartamo hilibka markuu ku saaran yahay adaxta wiil yar tahay oo ka dhigaa oday marmar waxay dadka ugu kaftan jireen aabaha baa ka dhalinyaro marka Facebook soo saarto islaambo aabaha baa ka dhalinyaro waxa waay adiga ka duqsanta markii adiga waa la dhigtay oo sabab ku xiriirta hilibka dartiisa marka isaamo marka iskari miisaankii Soomaaliyana inta aad joogtay bal maxaa kaaga baxay in dhalinyaradii maxaa falcelin ka heshay dadka asxaabta jiimka la dhiganay والله يد مستر بين يقال معلمين الجيم في جوجان تصال يسوع قاتان نيكا نحن انتاس بو هيل كيسكريد وتصال نور بينو كلا مرر بها جيم كيس حريا لا تغا تصالي ثلاثيا وصوبع يا جيم كلو دبكو يا تصالي طلا كبخيا ديرجلين حدث براءين هيل كيسكريد وان داخل وان كان وان وحبرس qofku ku sheegi kara macalinka ama qofka oo jiimka joogo fikirka oo hay tusaalaha uu ku sikra ninka waxa loo baahan yahay qofku in adiga tusaalaha adiga dameerka waxa u shaqo ugu badiyaa la inuu orod ku daro in xal raba markii wax lagu siiyo ina ficilkii badisay laakiin meesha baa u shaqada hal bacaad lagu la soo jugtug meesha joogo aad oo dambeyn saamo dadka raba inay miisaan dhimista sameeyaan dhalinyaradii ku taqaanay maadaama hadda laga yaabo inaad laabatid maxaa fariin u dir lahayd dadkii Mareykan joogay iyo dadka Soomaaliya joogay oo raba inay miisaan dhimista sameeyaan waliba
والله وحادي هاي إني dadaalka ay hormariyaan jiimanka macalimiin way joogaan tababaryaal way joogaan dad oo sida anoo kale is caateeyo oo waxaa jiro oo meelaha frontier ku tagaan oo dadka khibrad iyo wacyigelin siiyaan waa lagu sii karaa khibrad iyo wacyigelin iyo tababar laakiin adiga da sameynaynin ma soconayso waa in adiga la imaado dadaalka qofkaasna waxaa waaye wuu ku furfurnaana waqti ku siina laakiin haddii hadda maanta maryan ku dhaaf laba ku dhaaf afar waaye adaan saddex biri aniga kaan jawaad ay soo wacay kala kuma siinaay because waxa ana qabanin qofka inuu kuma siinaay dhalinyarta waxaa dhahayaa bishaan bil cibaada soo dhow hilibka la iskriidi karaa jiimka hala aado fadhiga halaga kac gabar iyo wiil hadii marka maxay ahayd cayil wax oo taraay adduunka malaha Soomaali bisa arkaysaa wax cayil adduunka waxa arkaysaa odayaal 60 jir waxa arkaysaa macallimiinka professorada anada macallimad oo iyahay professorad oo 10 ilmin jirtay 59 jir waa daarakaysaa 40 jirta naagta ko silibkii wixii iska ilaaliyeen oo baruurta daimar iska ilaalisid da'daada waa yaraanaysa waa bacna caafimaad ahaan waa fiicnaanaysa laakiin haddii laakiin baruur iyo culays ku saaran yahay adiga waa daalan tahay 15 bacdaaba maalintii cunaysaa aad ma san tahay intaayaan ku soo gabagabeynaa wareysi koobnaa ee la qaadanaynay walaalkeen wiilka dhalinyarada Izaan Xasan oo ah dhalinyarada qurbaha ka imaaday isla markaana si gaar ah uga wareysanaynay miisaan dhimista iyo waxyaabaha ka caawiyay waxaad iga daawanayseen muuqaalkan ka daawan doontaan page-kayga Maryan Ladane iyo sidoo kale YouTube-kayga Maryan Ladane official si aad ula socoto wararka iyo barnaamijyada halkan aan soo galinayno fadlan like share na dheh si asxaabtaada kale u arkaan mahadsanidin